السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوداشينا شرفت له waxaad ku soo dhawaataan warbixin xasaasi ah oo uga hadlayno arrimo la xiriira dilka Ikraan Tahliil Faarax oo kamid ahayd saraakiisha markaasi hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya dilkan ayaa waxa uu dhaliyay saameyn xooggan iyadoo dadka shacabka iyo sidoo kale mas'uuliyiinta kale iyo ehelada Ikraan ay si weyn markaasi ugu doodayaan in ra'iisul wasaare Roble uu cadaalad u raadiyo Ikraan Tahliil Faarax haddaba warbixintan waxay ku qotontaa maxay tahay sababta ka dambaysa in madaxweynaha dalka haatan hogaamiye Maxamed Cabdilaahi Farmaajo aysan siyaasiyiinta iyo shacabka Soomaaliyeedba uga dalbanin in uu cadaalad u raadiyo Ikraan Tahliil Faarax dilka Allah u naxariistay Ikraan Tahliil Faarax wuxuu abuuray argagax diidmo iyo caro xoogan oo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ay si isku mid ah u muujinayaan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya oo Ikraan ay ka tirsaneed waxay afduubka iyo dilkeedaba ku eedeysay dagaalamayaasha Al-Shabaab hase yeeshee Al-Shabaab ayaa durbays ka fogeysay iyadoo oo sheegtay inay eedaas ula yaabtay si la mid ah shacabka kale ee Soomaalida siyaasiyiin badan oo ka hadlay dilka Ikraan oo ay kamid yihiin Mahad Maxamed Salaad Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Xasan Sheekh Maxamuud Umar Cabdirashiid Taabid Cabdi Maxamed iyo kuwa kale waxay falcelintooda inkasta oo qoraal ahaan ay kala duwaneed ay lahayd hal macno waxayna ku dalbanayeen in ra'iisul wasaare Roble uu talaabo qaado waxa la mid ah shacabka Soomaaliyeed oo iyaguna dalbanay in ra'iisul wasaare Roble uu talaabo ka qaado dadka lagu tuhumayo kiiskan oo Ikraan cadaalad hesho haddaba aaway madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo isagu dalka haatan hogaamiye madaxweynihiina ah baaqyada ku socda Roble waxay dhalinaysaa su'aalo ah maxaa loo waayay cid baaq u diraysa Farmaajo oo ka codsanaysa inuu wax ka qabto xaaladan baaqyada ku socda Roble waxay macno weyn ka bixinayaan halka uu maanta Farmaajo ka taagan yahay Soomaaliya sumcad ahaan iyo sharciyad ahaan haddii uu dareensan yahay haddii kaleba dadka dalbanaya in cadaalad hesho Ikraan ee dhinac maraya Farmaajo una qaylinaya ra'iisul wasaare Roble waxay Farmaajo u dirayaan fariin laba macno ah in uusan sharciyad madaxweyne haysan iyo haddii uu haystana in aysan kalsooni ku qabin inuu cadaalad fari karo madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo muddaxileedkiisii saxda ah wuxuu ku ekaa 8 bishii February ee sanadkan 2021 waxaana dad badan ay rumaysan yihiin inuu kursiga ku fadhiyo sharci darro oo ay tahay inaan waxba laga weydiinin masiirka ummadda iyo dalkaba Farmaajo ka hor waxaa jiray madaxweynayaal waqtigoodu dhamaaday sida Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed haddana marnaba aan sharciyadooda dood la gelin sababtuna waa inaysan isku dayin muddo kororsi isla markaana jallaafo kasta oo ay awoodaan u dhigin in dalka ay doorasho ka dhacdo sida ka duwan Farmaajo waa taas sababta ay u rumaysan yihiin in Farmaajo uu kursiga ku fadhiyo balse aanu dalka maamulin oo Roble iyo xukuumaddiisu ay haystaan sharciyada xilgaarsiinta ilaa inta madaxweyne kale laga dooranayo qaybo kale oo shacabka kamid ah ayaa Farmaajo u muujinay in xitaa haddii ay rumaysan yihiin in uu sharciyad haysto aysan aaminsanin inuu cadaalad fali karo ama qaadi karo wax tallaabo ah oo ka dhan ah dadka lagu tuhmayo dilka Ikraan Farmaajo intii uu madaxweynaha ka ahaa Soomaaliya waxaa dhacay tacadiyo badan oo loo geystay dad shacab ama siyaasiyiin sida dhiibistii qalbi dhagax weerarkii Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame xasuuqii shacabkii Baydhabo iyo askartii la geeyay Eritrea oo wali la leeyahay qaarkoodna la xaqiijiyay in la dilay dhammaan tacadiyadan waxay si toos ah ugu dhamaadeen Farmaajo waana taas sababta aysan maanta jirin cid markaasi soo hadal qaadaysa Farmaajo ama cadaalad uga dalbanaysa marxuumad Ikraan Tahliil Faarax 4 sano kadib markii Farmaajo la doortay oo shacbiyada uu helay ay ahayd mid aan hore loo arag wuxuu maanta taagan yahay maqaam loo arko inuu ahaa madaxweynihii ugu tacadiyada badnaa uguna xukunka xumaa ee dalka soo mara muddadii 30 sanadood ee la soo dhaafay waxaa dhimatay sumcadiisa wuxuuna marayaa heer xitaa aan loo soo hadal qaadin xilli kiis xasaasi ah oo nuuciisa aan dalka lagu arag uu taagan yahay haddaba daawade sidee adiga kula tahay in Farmaajo oo madaxweynihii dalka isu haysta haatan la hareer mariyo in cadaalad ay hesho Ikraan Tahliil Faarax iyo sidoo kale dad kale oo fara badan taasna loo xil saaray ama loo dalbaday in ra'iisul wasaare Roble iyo xukuumaddiisu ay ka hadlaan isla markaana ay cadaalad u raadiyaan Ikraan Tahliil Faarax iyo dadka kale ee dulman ee la midka ah Ikraan